وعربا أرين عصية أو كتمي بيلو كميدا بيلها بدلان أو كوساب سنايد إن لكرديو ترى قلها وكيلة أو أرنتاس عصيقودي أنو قد بني محكمة دستورية وايو qodobka lixdanaad farqadiisa labaad ayaa waxay u baahatay fasiraad sharci sidaa daraadeed maxkamadda dastuuriga ah ayaanu qoraal u qornay 24 bishii lixaad si qodobka lixdanaad ee dastuurka farqadiisa labaad ay uga soo sameeyaan fasiraad sharci maadaama wax ka bedelkii dastuurka uu shalay ansixinay arrintaa qusaysay in dadkii maxkamadda dastuuriga jawaabta ay soo bixisay loo akhriyo ay ogaadaan mudanayaal dadka matala baa iyaguna fadhiya si ay arrintaa wax uga ogaadaan ugala socdaan insha Allah bilaa kariim xogayaa wax ka codsanayaa markaa insha Allah bilaa kariim codsiyadii runtii beelaha mudanayaal faylkan ay ku jiraan insha Allah bilaa kariim laakiin beelahaasi beelaha yihiin qoraalkan u qoray maxkamadda dastuuriga bay ka dhex muuqan doontaa xogayaa wax ka codsanayaa in waraaqdii ku taariikhaysan 24 bishii lixaad ee aan u dirnay maxkamadda dastuuriga iyo jawaabtii ay soo bixisay maxkamadda dastuuriga ku taariikhaysan 29 bishii lixaad ee sanadkan 2023 labada waraaqadoodba uu golaha hortiisa ka akhriyo ku soo dhaw xogay mudane gudoomiye waa mahadsan tahay mudanayaal warqadda tirsigeedu yahay xagaaga jiitin daaba alla jiitin 34 garoowe sabti ku taariikhaysan 24 bishii lixaad 2023 ku gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga dowladda Puntland garoowe ujeedo ka soo tala bixin sharci mudane gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 64 farqadiisa labaad 139 iyo 95 farqadiisa 5 markuu arkay xeerka maxkamadda dastuuriga qodobkiisa 9 farqadiisa 5 markuu arkay xeerosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobkiisa 3 markuu arkay codsiga ay soo gudbiyeen golaha wakiilada soo gudbiyeen beelaha hoos ku xusan mudane gudoomiye waxaan si xishmad iyo qadarin leh maxkamadda dastuuriga u weydiisanaynaa si waafaqsan qodobka 95 farqadiisa 5 ee dastuurka dowladda Puntland inaad tala bixin sharci golaha wakiilada ka soo siisaan codsiga ay u soo gudbiyeen golaha wakiilada beelaha kala ah sanada daarood warsangeeri lubahanta majarteen kaskaqabe geesaguule liibaangashe ortoble mareexaan wagardhac dir iyo madhibaan oo ku saabsan kordhinta tirada xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland mudane gudoomiye waxaan ka codsanayaa inaad fasiraad sharci ka soo bixiso qodobka lixdanaad farqadiisa labaad ee dastuurka dowladda Puntland waxa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil warqadda tirsigeedu yahay maadaaba jiitin labo jiitin daaba la jiitin 2023 ku taariikhaysan 26 bishii lixaad 2023 ku gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland ujeedo tala bixin sharci mudane gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga dowladda Puntland markay aragtay warqadda tirsigeedu yahay 34 bishii lixaad 2023 kana soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland oo lagu weydiisanayo tala bixin sharci markay aragtay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 64 farqadiisa 2 iyo 139 farqadiisa 5 markay aragtay xeerka maxkamadda dastuuriga dowladda Puntland qodobkiisa 9 farqadiisa 5 ee ku saabsan in maxkamaddu tala bixin sharci ka siin karto golaha wakiilada dowladda Puntland markuu weydiisto maxkamadda dastuuriga dowladda Puntland sida uu qabo qodobka 66 farqadiisa 2 ee dastuurka dowladda Puntland oo u dhigan sidan inta laga helayo tirakoob sugan golaha wakiilada wuxuu ka koobnaanayaa 66 oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah maxkamadda dastuuriga dowladda Puntland waxay cadeynaysaa inaan la kordhin karin tirada xubnaha golaha wakiilada oo ka kooban 66 xubnood oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah inta laga helayo tirakoob sugan sida uu qabo qodobka 60 farqadiisa 2 ee dastuurka dowladda Puntland farqada 2 inkastoo maxkamadda dastuuriga ay cadeysay inaan la kordhin karin xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland
haddana waxay u muuqataa in golaha wakiiladu go'aan ka gaari kareen iyadoo aan maxkamadda dastuuriga la weydiisan talabixin sharci. waxaa ku saxiixan dr xasan yuusuf nuur gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga dowladda puntland. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mudanayaasha sharafta badan ee golaha wakiilada, sida aad ka aragtaan qoraalkii golaha wakiilada u diray maxkamadda dastuuriga ah iyo jawaabtii ay soo baxayeen maxkamadda dastuuriga ah, waxa cad in aan qodobka 6aad ee dastuurka dowladda puntland farqadiisa 2 ee ku saabsan xildhibaanada golaha wakiilada tiradooda oo 66 inaan la kordhin karin. jawaabtaasi soo bixiyeen aan la taaban karin ilaa laga helaya afti dadweyne. marka saas inta waxaan la wadaagaynaa dhammaan shacabweynaha reer puntland ee soo codsaday in la furo qodobkaas oo la kordhiyo tirada xildhibaanada golaha wakiilada inaanay suurtagal ahayn ilaa afti dadweyne laga helo. jawaabtii maxkamadda dastuuriga soo bixisayna ay noqotay caynka. mudanayaashii insha allah beelaha matalay golaha jooga codsiyada wax kala socday ee na soo gaarsiina waa uga mahadnaqaynaa inay u qareemaan ummadda ay matalaan. laakiin mudanayaal waxayna qabsatay arrin sharci ah oo aynaan meelnaba ka dhaafi karin oo dastuurka qodobkaas ayna qabtay. idinkana aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa dadaalkiinni aad samaynayseen insha allah billahi kariim. waxaan rajayn doonaa marka barnaamijka dimuqraadiyadda uu si fiican u hirgalo ilaahay idinkii insha allah billahi kariim in beelahaasoo dhan matalaadooda ay heli doonaan oo ay ku qanci doonaan insha allah billahi kariim. mudanayaal idinkuna waa mahadsantiin. aad iyo aad baan shacabweynaha reer puntland ee codkaygu gaadhayana aan ugu mahadnaqayaa iyo beelihii soo codsaday in tirada xildhibaanada golaha wakiilada la kordhiyay insha allah billahi kariim. waxaan sugi doonaa xilliga la gaadho in afti dadweyne oo sugan laga helo puntland insha allah billahi kariim. iyaguna matalaadooda waa heli doonaan. waana mahadsanyihin.